gaar ahaan waxaan maqlaynay dad dowlad goboleedyada oo leh waxba xamar ma soo dhaafaan waxaan haynaa xogta oo soo qornay qof kasta la sheer garan karna oo wasaaradda laga soo qaadan karaa meel kasta waddanka wixii soo galay dhinac kasta ka yimid iyo sidii loo qaybay sidoo kale wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in deeqaha Soomaaliya la siiyo 19% la siiyo Somaliland barnaamijyada barnaamij gaar ah jeclaan ka sameeyay warbixin gaar ah laakiin waxa yaradan tusaalaankaasi intaan ku ka xasuusto waxa ugu badan waddanka soo galay gargaar 19% waxay aaday Somaliland 14% waxay aaday Puntland 13% waxay aaday Jubbaland 12% waxay aaday Koonfur Galbeed 9% ma filaya waxay aaday Galmudug 8% waxay aaday Hirshabelle 10% gobolka Banaadir inta kale oo ma 16 tahay 16% dowladda federaalka halkaas ay garanaysaa horta inaan dowladda federaalka xaq u baahan dowladda federaalka waxa ma soo dhaafan gargaarka waddanka soo galay xamar ma soo dhaafin halkaas lagu qeyb xog ma jira waxaan u baahanahay marka dadku inay fahmaan waxyaalaha qaarkood oo loo dadka xasaasiyad loogu geliyo loogu kiciyaan ma fiicna sababta waxa weeye dadkii deeq-bixiyaashana waa joogaan wala weydiin karaa anigana xogta ma hayna qofkii su'aal ka qaban oo noo iman kara oo sheegi kara